soo dhawaada saaxiibayaal mar kale isku soo laabasho wacan maanta waxaan ii wadaa kay daraama aad iyo aad u xiiso badan taasoo lagu magacaabo top management waxayna soo baxay sanadii 2018 inta aanan bilaabin muuqaalka waxaan ka codsan lahaa inaad noo qurxiso lag inoo saarto haddii aad nu cusub tahay nagu soo biir intaas kadib ma inoo bilaabo xalqadeena daraamahena wuxuu ku bilowdaa koox caan ah kuwaasoo lagu magacaabo Soul waxayna soo bandhigayaan showgan waxaa kasoo qaybgala dad aad iyo aad u badan kuwaasoo raba inay arkaan hibada kooxda showgana si fiican ayuu u socday kooxdana ay soo bandhigaysay hibadooda laakiin si filan shil ayaa dhaco mid ka mid a ilaaliyihii kooxda ayaa wuxuu ku dhaca masraxa hoostiisa weliba dadku arkaa laakiin kooxda waxay sii wadataa showgeeda arrinkaasna waxaa ka carooda taageerayaasha suuqana waxaa loo geliyaa kooxda inay yihiin dadaan nixin saamiyada suuqoodana hoos ayuu u dhacaa boqolkiiba boqol waxaan arkaynaa gabar loo magacaabo Sion inay arkaas arkayso arrinkaas markay maqashin zaad ay isku naxdaa waxayna fiirisaa boor taariikha meesha ku yaalay isla markii arrinkaas samaysana waqtiga ay dib ugu laabataa waxayna aadaa 12 saac ka hor intuu falkan dhicin haddana waxay la joogtaa koox dumar ah silan falana mid ka mid a dumarkii ayaa biyo ku daato taasina waxay soo rabtay dhulka inay ku dhacdo laakiin atirishadiina ayaa aragta wayna usoo roday iyadoo badbaadinaysa markaasna muuqaalkeena wuxuu gudaa dhankaasi magaalada kooxda caankeed ee Seoul kuwaasoo gaari saaran taageerashooda ayaa dhexda u galo silan falana qof qariib ayaa daaqad usoo istaaga wayna isku naxaan tiimka dhan qofkan wuxuu soo saaraa warqado kuwaasuu daaqada kusoo dhejinayo laakiin si daruurkooda ayaa ku dhaho daaqada iska xiraa daaqada ayaan iska xiran gaarigana meesha ayuu ka dhaqaaqaa qofkan wuxuu isku daya inuu kusoo dawaado waxaan ogaanaa Sion inay ahayd kadib arrinkaas waxaa kasoo weerartay 2 sano waxaana arkaynaa Sion oo noqotay managerad waxaana loo soo diray qof inay soo doonto ugu dambeyntii qofka ayaa islaan waxaana lagu magacaaba Hyun Son wuxuu weydiiyay hadda kahor in la kulmay laakiinse way ka meeraysatay arrinkaas iyadoo sheeko gal u galaysa ugu dambeyntii alaabtiisa ay usoo qaataa waxayna usoo saartay gaari iyadoo kusoo kaxaynaysa intay dhexda marayna waxaa soo waca maamulihii ka weynaa wuxuuna u sheegaa maariyii kooxda inuu mashquulsan yahay saas darteed waa inaa soo wadaa kooxda dhammaantooda Sion arrinkaas koodii weydiida laakiin maamuliheeda ayaa ku cadaadiyay wayna ogolaataa waxayna wacdaa midkii ugu horeeyay kooxda laakiinse taleefka ayuu ku jiraaba wax yar kadibna waxay arkaan soo agtooda marayaba saaxiibtiis ayuu ka daba cararaya isagoo barbaraya maadaama qalad uu ka galay jilba ayuu dhulka u igtaa laakiin way ka tagtaa ugu dambeyntiina gaariga uu soo raca weliba soo murugaysan intii uu gaariga saarna wuxuu ka hadlayay dareenkiisa silan falana waxaa kusoo dhacday cid ay yihiin inuu weydiiyo Sion ayaana u sheegtay inay tahay kadib maalijarad cusub ee kooxda dhan kale waxaa arkaynaa koox film duubaysay ninkii filimka duuba ayaa wuxuu ku qeylaya atooraha filimka maadaama actarkan uu iska qoslaya xataa doorka hadduu yahay murug laakiinse filimka ma saari karaan uu qurux badan yahay kadib uu soo baxa wuxuuna la kulmaa Hyun Son iyo Sion gaari ayuu soo raaca muraayad asoo fiirinaya inuu dhoola cadeeya arrinkaasna Sion ayaa ka xishooto muraayaddeena iska leexisa kadib waxaa arkaynaa dhankaas iskuulka wiil lagu magacaabo Erib kaasoo foodinaya ciyaal foodo meesha fadhiday hadal ayay ka daba tuuraan laakiinse ciyaal foodadii gabar ay u imaado waxayna ku dhahdaa isku dayana mar dambe inaad foodaysaan Eribna gaarigiisii intuun garan gadaal ayuu soo fiiriyaa wuxuuna arkaa gabadha oo salaamaysa laakiinse uu kasii jeesta gaari ayuuna gala gabadha way ka xumaataa haddana fanaaniintiisii oo saan ayay ku dhamaystiran yihiin waxaana lagu kala magacaabaa Tio Erib Yen kadib atariishadeena maamulaheeda ayaa soo wuxuuna u sheegaa war naxdin taasoo ah kooxda inay burburi doonto hadday showga guuldareystaan ugu dambeyntiina kooxda waxay imaadaa meesha lagu qabanayo showga markii magacooda lagu dhawaaqaan taageerayaasha waxay muujiyaan inay soo dhaweynaynin ugu dambeyntiina kooxda waa imaadaa iyagoo soo bandhigaya show ayna macaadi ahayn goobtan waxaa imaada xubnihii dhabta ay maamulaya kooxda manajarada kooxda oo atariishadeena ah ayay la hadlayay laakiin si filaan ah waxaan arkaynaa mid ka mid a kooxda inuu oynayaba wuxuuna u sheegaa dadka inay kooxda burburi rabto mar dhow laakiinse dadka meesha ka murugoyn lahaa way ku qoslaan sababtoo ah hooyinta kadib kooxda inay showga iska sii wateen maalinka xiga tiimkan hal meel ay ka wada shaqeynaya Sionna way joogta meesha Sionna warqad ayay meesha ku aragtaa wayna fiirisaa waxayna aragtaa mustaqbalka iyadoo waxaa ku dhici doona halkaasoo ka fahmayna Sionna inay leedahay awood mustaqbalka ay ku aragto kadib maalintii xigta waxaa keena iyadoo dhankaasi shaqada usoo socota ugu dambeyntina waxay la kulantaa Hyun Son waxayna ka wada hadlaan arrin ku saabsan kooxda Seoul kadib waxaa lasoo gaaraa xilliga qadada maqaayadda xarunta ayayna imaadaan halkaasoo wadajir cuntada u qaadanayaan kadibna xarunta ayaa laskugu imaadaa iyadoo shar la galaya waxaana laga doodaa in Hyun Sung laga dhigay kooxda qofka cusub kusoo biiri doona maamulayaasha ra'yigiisa ay weydiiyaan wuxuuna ku dhahaa Hyun Son weligii kuma fikirin inaan fanaan noqdo laakiinse haddii idinka ogashiyaanna waa ogolahay arrinkaas ayaana ku farxaa maamulayaasha laakiinse Hyun Sung saas kuma aamuso wuxuu bilaabaa inuu isfaaniyo Sion ayana lugta ugu istaagto kadib waxaa arkaynaa kooxdii Seoul oo hal meel isla joogtaa iyagoo iska sheekaysanaya Hyun Sung ayaa muusig daaro muusigaas ayay kooxda iskaga raxsanaya meeshan waxaa soo marta maamulaha isla markii moobilkeeda ay soo baxsataa maadaama heesta ka shabeed duubataa dhan kale Sion waxaa imaadaa gurigeeda iyadoo soo baxsanaysa dharkii yaraanteedii training ay ku qaadan jirtay waxayna hor istaagtaa muraayadda xasuuso hore ayaana kusoo dhaco isla markiina waa iska celisaa kadib banaanka ay usoo baxdaa hore dalad ayay usoo qaadataa maadaama roob uu da'ayay intay wadada guragtana gaari xoog u socda ay meesha soo maro Sunna waxay badbaadisaa gabdha meesha taagna kuwaasoo biyo ku daadan rabay ugu dambeyntii gabdhaha way macdaliyaan meesha ayayna iskaga tagaan kadib Sion waxay imaadaa xarunta shaqada waxayna aragtaa dadkii xarunta ka shaqeynaya inay game bb iska dheelayaanba isla markii gacanta ayay taagata iyada ku dhehaysa aniga ii dhiiba gabadha ayay ka xogtaa isla markiina biyihii ayay daadaysaa dadka dhan ayay halaysaa waxyar kadib waxaa arkaynaa Sion oo murugaysay maadaama xishood iyo ceeb ay darantay intay nafteeda eedeynaysan waxay maqashaan silin falana hees ka soo baxaysa dhankaasi Hyun Son heestaasna qalbigeeda eediisa Hyun Son uu arkaa inay soo fiirinayso maalinka xigay manajarada tiimkii Seoul hal meel ay iskugu keentaa waxayna u
sheegtaa Hyunsoo inuu kusoo biiri doono. Tiimkana arrinkaas markay maqlaan waa isfiiriyeen ayagoo yaaban. Dhanka kale Hyunsoo wuxuu imaadaa guriga tiimka wuxuuna arkaa gudaha markuu soo galay guriga inuu zaid wasaq u yahay. Arrinkaasna kama helo waxaana arkay wax yar kadib inay imaanayaan tiimkii Seoul. Waxayna arkaan guriga in la hagaajiyay waxayna isweydiiyaan dhexdooda in qof uu keenay gabar taasoo guriga hagaajisa. Laakiinse marka dambe waxay ogaadaan Hyunsoo inuu yahay qofka meesha hagaajiyay. Maalinka xigta waxaa arkaynaa tiimka dhan inay hal gaari soo raacayaan. Dhankaas shirkadda ay soo aadaan markay baakinka soo gaaraan shil ayay galaan. CEO-na arrinkaas markay aragtay zaid ee wax naqda waxayna ku qaylisaa gaariga shilka geliyay. Balse waxay aragtaa managerka ka weynaa inuu la socdo. Sidoo kale gaariga waxaa saarnaa fanaan caan ah kaasoo kaligiis haysta. Markaasna doodooda waxaa soo dhexgala Hyunsoo wuxuuna la jirsadaa fanaanka asagoo eed dhan saaraya Seon. Kadib Tio iyo Hyunsoo waxay soo raacaan wiishka. Tio-na Hyunsoo ayuu weydiiyaa sababta uu la jirsaday ninkaas. Balse Hyunsoo wuxuu ku jawaabay kaliya aniga runta ayaan sheegayay. Kadib tiimka studio ay isku imaadeen isku diyaarinayaan inay wax soo duubaan balse meesha waxaa soo gala fanaankii caanka ahaa. Wuxuuna ku dhahaa maxaa naga qaldan meesha aniga wax ku duuban rabo. Tio ayaan soo kaco wuxuuna ku dhahaa 3 saacadood ayaa meesha kareysanay. Isla markii Seon ayaa banaanka loola soo baxaa waana lagu qayliyaa. Asxaabta kalena kor ayay ka fiirinayeen. Markaasna fanaanku uu tanaasulo wuxuuna ku dhahaa 3 saac iska dhamaysta. Intaas ka joogaya waxaana fiirinaya sida wax u duubaysiin. Isla markii asxaabta way wada fadhiistaa wuxuuna bilaabay Hyunsoo bilaab macna inuu ku hadlo. Seon ayaa soo orday waxayna jiidaa gacanta. Laakiin isaga ma aamuso maanta dhan uu daldalmayay. Ugu dambeyntii shaati ayaa u furmay Seon wuxuu ku daba dhacdaa fanaankii. Tiimkii meesha joogana isku naxay maadaama fanaanku ku daatay kofayga uu watay. Fanaanka inta dhan wuu isdejinaya laakiin wuxuu arkay kabihiisa inay halaabeen. Arrinkaasna uu ka xanaaqaa sababtoo kabaha waxay ahay mid qaali ah. Seon waxay bilowdaa fanaanka inay raali geliso. Tiimkana arrinkaas markay arkaan qosol ayay ka bixweynayaan. Maalinka xigta tiimka waxaa arkaya dhammaantood inay imaanayaan studio halkaasna waxay ku diyaarsadaan heestii ay ku daarsi gareyn lahaayeen. Korna waxaa ka daawanaysa Seon waxayna fahantaa Hyunsoo inuu tiimka hal mid ka dhigay. Markaas xubnaha tiimka waxay bilaabaan meesha inay ku daarsin gareeyaan. Qof walba si fiican ayuu daarsi gareynaya marka laga rabo Hyunsoo sababta uu ku cusub yahay. Markaas xoogoo Tio ayaa daansi tuso. Daansigii ayuu ku celceliyaa laakiinse ugu dambeyntii wuu daalaa oo dhulka ayuu jiiftaa. Habeenkii markii la gaaray Hyunsoo wuxuu bilaabaa kaligiis inuu tareeni gareeyo. Markaasna Seon ayaa meesha timaada waxayna ku dhahdaa xoogoo ma ku baraa maadaama iyada hore ay u aqaantay daansiga. Intay isku dayeysay inay wax fahansiiso meesha waxaa imaada Yoon. Wuxuuna ku dhahaa man igu soo biri karaa oo misla daansin gareyn karnaa. Tiimkana waxay ku dhahayaan maxaa diidaya. Waxayna bilaabaan habeenkii dhan meesha inay ku daansin gareeyaan. Maalinka xigta madaxda hal meel ay isku imaadaa oo wax la qiimeynaya tiimka Seoul. Meeshan waxaa imaada fanaanka caanka ah wuxuuna ku dhahaa tiimka man igu soo biri karaa. Fanaanka waa loo ogolaadaa wuxuuna ku dhahaa tiimka Seoul inay guuleysataan. Kadib tiimka waxay bilaabaan xirfadooda inay soo bandhigaan. Tiimkana daansiga si fiican ay iskula fahmayeen. Laakiin Seon walwal ayaa ku furnaa oo waxay ka walwalaysay jawaabta ay bixin doonto maamulaha. Kooxdan meesha u dambeysay markay meerayaan Hyunsoo ayaa daansiga qaldo. Saasay tahana dadka meesha jooga u sacbiyaan. Maamulada ayaana tiimka hadashay waxayna ku dhahdaa ma isku kalsoon tihiin. Tiimkan waxay u sheegaan inay isku kalsoon yihiin. Laakiin saaxiibkiina Hyunsoo ay soo bado wuxuuna ku dhahaa 100% waa isku kalsoonahay. Seon walwal ayay dareentaa. Madaxdana waxay u sheegaan qaladaadka yar ee tiimka dhacay sida iskaga sixi lahaayeen. Sidoo kale fanaanka wuxuu ku darsadaa fikirkiisa. Maamulada jawaabteeda waxay noqotaa kalsoonida markay 100% noqoto iyo imaada. Kadibna kulligooda madaxda meesha ayay ka wada dhaqaaqaan. Seon arrinkaas markay maqasho zaid ayay u murugootaa. Kaligeedna murugada ma haysan ee tiimka dhan ayaa murugaysanaa. Kadib Seon iyadoo xishoonaysa waxay u imaadaa tiimka waxayna ku dhahdaa iga raali noqda. Balse Yoon ayaa ku dhaho adiga qaladkaada maaha taas. Suna intii meesha joogto xoogaa waxaa dareemayna hargab inuu haayo. Kadib way soo baxdaa waxay u imaadaa kuwii ka sareeyay. Hortida ay iskaga baashaalaan iyagoo cunto iskaga cunayaan. Seon hargabka ayaa ku soo kaco cuntada ayayna ka halaysaa. Maskiintana mar walba wax soo siyaasa dhahda qalad unbaa ka dhaco. Maamulahana wuxuu bilaabaa inuu ku qayliyo. Seon waxay gashataa maaskii. Banaanka ayaana soo baxdaa iyadoo zaid u murugaysan. Nafteeda ayay eed saaraysay mar walba waxay hagaajis dhahdana qalad unbay samaysaa. Intay meesha socotay erib ayaa ka hormaada markuu maaskiga arkan uu isku naxaa. Seon wajiga ay u furtaa wuxuuna ku dhahaa gabadhii maaskiradan ku maleynayay. Seon arrinkaas ayay la yaabtay laakiin waxay soo xasuusataa markay gaariga tiimka saarnaayeen ee kasoo daba ordaysa iyadoo maaskiga qabtaa. Waxayna isweydiisaa erib ilaa hadda sababtoo arrinkaas u xasuusto. Maalinta xigta Seon waxa uu yeeray midkii ka koreeyay wuxuuna u sheegaa kooxda Seoul inay hadda burburtay. Arrinkaas markay maqashaan waa isku naxdaa balse waxaa loo sheegaa in iyada koox cusub loo dhiibi doono mar dhow. Seon arrinkaas ayay la yaabtaa. Wax yar kadibna kooxda ayay u imaadaa Tio wuxuu go'aansadaa dharkiisa inuu la laabto. Markaasna banaanka waxaa u soo baxo Seo iyo Yoonwoo. Yoonwoona warqad ayuu soo bixiyaa Seon ayuuna siiyaa. Iyadana waxay maleynaysaa warqadda wax kale inay ku qoran tahay balse waxay ogaataa warqadda inay tahay tii cuntada lagu cunay. Kadib Yoonwoo wuxuu aadaa gaarigiisa wayna macsalaamaysaa. Dhanka waxaan aragnaa Hyunsoo kaasoo jooga guriga. Alaabtiisa ayuuna la laabtaa maadaama kooxda ay kala tageen. Balse hawshaas intuu ku jiro wuxuu arkaa cajalad meel taala. Cajaladda markuu soo qaadana wuxuu ogaadaa kooxda Seoul inay qaaday. Wuxuuna soo xasuustaa mar ay isla joogeen Seon taasoo u sheegtay in kooxda ay soo saartay hees taasoo weliba xaquuq iyaga u leeyihiin. Markaas ayayna tustay. Hyunsoona cajalad ayuu kala furaa si uu ogaado waxa ku dhex jira. Markaasna wuxuu bilaabay heesta ku duubneed inuu dhageysto. Habeenkii markii la gaaro Seon iyo Hyunsoona waxay imaadaan baar. Meeshan waxay ku arkaan laba qof kuwaas oo caynaya kooxda Seoul. Hyunsoona ayaana adkaysan waayaan wuxuuna ku dhahaa ka joojiya cayda kuwa diin. Waxay weydiiyaan cidu wuxuuna u sheegaa inuu taageero Seoul. Seon Hyunsoona ayuu amartaa waxayna ku dhahdaan xataa
xitaa fanis ayaan u ahay. Kadib meesha waxaa imaada Tio, meesha ayuuna ka wadaa. Markaasna wuxuu ku dhahaa kooxdeeda hadday burburto xataa shaqadeeda ma iga daba imaadeen. Hyunsuk ayaa ku dhaha kooxda hadda waa inaad isku soo laabataa. Sidoo kale heesta aqaadeen waa dhegeysta waa mid aad iyo aad u fiican. Dhan kale maamulihii shirkadii shaqaalihiisa waxay isdhahayeen wiishka kor laakiinse waxa ka hor imaado kooxdii Seoul kuwaasoo hal meel iskugu imaaday. Waxayna bilaabeen heestoodii Seoul inay qaadaan. Markaas maanajarad waxay ku dhahday heestan koobi waa inaga daaya. Laakiinse runta ayaa la ogaadaa waxaana ogaanaa in Hyunsuk uu iska leeyahay heestan. Balse mid ka mid ah shaqaalaha uu qaatay gitaarna uu bedelay. Cajaladii dhabtaana Hyunsuk ayaa hayo. Halkaasna waxaa lagu fahmaa kooxda Seoul inay ahayn kuwa heesaha koobiyey. Markaas maalinta xigta waxaa la qabtaa shir saxaafadeed kuwaasoo lagu soo dhaweynaya kooxda. Kooxdana saa ogeyn waxaa ka tirsanaya saddex laakiinse hadda Hyunsuk ayaa kusoo biiray. Bandhigana Hyunsuk ayaa dadka isku barayay. Wareysigana wuxuu noqdaa mid aad iyo aad u guuleysta. Kuwaasoo mustaqbalkooda laga yaabo inuu wax ka bedelo. Seoulna talaabada koowaad ee kooxda markay aragtay aad ayay ugu faraxdaa. Markaas muuqaalku soo gediyaa dhankaasi magaalada. Seoulna wuxuu imaadaa nin xafiiskiisa jooga waxayna rabtay kooxda dhiirigelinteeda inay kala hadasho. Balse waxaa aragtaa ninka mid eedo daray inuu yahaba shaqaalihii dumarka ahaa inuu dhabarkiisa salaaxayay. Markaasna iyadoo raalli ka ahayn ayay u imaadaa wayna salaantay iyadoo isbaraysa. Laakiinse ninkan waa gacanteeda markuu salaamo wuu ku dhagaaba. Asagoo wax kala damacsan ayuu ku dhaha gudahan ku wada hadlayna laakiinse nin ayaa ka reebo. Wuxuuna u sheegay qof muhiim inuu banaanka ku sugaayo. Kadib waxaa soo raca Seoul iyo ninkii soo badbaadiyay wuxuuna u sheegaa in mar walba booskooda san u yahay iskaga dulqaadato. Markaas iyadu waxay ku dhahdaa booskiin hadduu qalad galaya ogtiin inaa la shaqaysaa ma ahayn. Duqii waalana wuxuu la kulmaa kooxdii Seoul wuxuuna usoo bandhigaa project kaas oo aan macquul ahayn. Arrinkaas Seoul markay maqashana way ka diidaa. Ninkiina wuu xanaaqa oo meesha ayuu iskaga tagaa. Kadib habeenkii waxaa aragnaa Seoul oo casheynaysa inuu Hyunsuk u imaanayo. Wuxuuna arkaa cuntada ay cunayso inay tahay cunto shiilan. Markaas ayuu ku dhahay haweenbar iyo cunto shiilan macquul ma ahan. Iyadana ku qolaysa waxay ku dhahaan maamulaha inaa hayloobin. Markaasna inta dood socota Seoul telefoon ay u soo dhahay waxayna soo aadaa inay cuntada soo xareysato. Laakiinse Hyunsuk ayaa ka daba asagoo ku dhahay haweenbarka inta u socotaa. Iyadana way istaagtaa iyadoo hadalkiisa la yaaban. Waxayna ku dhahday kaal horta aad meeshan aadaha maxaa kaa galay. Markaas waxaa ogaanaa ninkii waalna xalfad yar inuu qabsaday. Saas darteeda Seoul waxay soo aaday dhankiisa wuxuuna bilaabaa inuu ku dhego. Hal marna telefoon ay u soo dhaco Janice ayayna ku heshaa banaanka ayayna iskaga soo baxdaa. Intay telefoon ku hadlaysana ninkii waalna wuxuu sii dhibaa gabar shaqaale ah. Markaasna iyada imaado kala dhexgalay is dhahday laakiinse wuu daba tuuraa. Seoul waxay soo xasuustaa nin hadda ka hor kiis loo haystay kaasoo ay ku aragtay awoodeeda mustaqbalka. Ninkaas calaamad uu lahaa ayuuna leeyahay ninkan. Markaasna Seoul wax walba way fahantaa. Iyadoo xanaaqsan ayay gadaashiisa ka imaada garbaduub ayaan u qabataa. Waxayna ku dhahdaa dhaqanka hadda iska bedelaysa xabsiga ayaa ku ori doontaa. Ninkan shaqaalihiisa hortiisa ay ku ceebeysaa. Maalinta xigteen Seoul waxay la kulantay gabadhii xalay ee badbaadinaysa gabadhan u ahmad celisaa. Balse waxaa aragtaa ninkii xalay ee ceebeynaysa soo socda wayna ka dhuumataa. Telefoon ayaa u soo dhaco waxayna ku ogataa telefoonkaas in ninkan uu damacsan shirkadda ay ka shaqaysay inuu xariirka u jaro. Taasina waxaa soo waxay ku samaysay. Maalinka xiga Seoul iyadoo cabsanaysa ay shirkadda soo gashaa waxaana u baahda madaxda. Seoul qaladka ay gashay daradeed waxay marinaysaa shaqadeeda inay weyn doonto laakiinse waxaa arkaynaa in waxaas wax ka duwan ay la kulmayso. Ninkii ay ceebasana waa lagu taageeraaba oo shirkadda xataa ku taageertaa. Arrinka Seoul markay ogaatana way la yaabtaa. Markaas waxay la kulantaa Hyunsuk wuxuuna ku dhahay habeenkii hadda hadalkii qaadan lahayd xilligan waxaas kuguma dhaceen. Markaas ayay weydiisay inuu soo dabagalayay. Hyunsuk wuxuu u sheegaa 9 xarun markii ay aaday 6 xarun ka mid ah inuu soo daba socday. Kaliya wuxuuna islahaa ilaali balse iyadu way ku qaylisaa. Waxaana ku dhahdaa xiriir baa naga dhexeeya markaa kor iga ilaalinaysid. Iyadoo xanaaqsan ayaa meesha iskaga tagtaa. Hyunsukna arrinkaas ayuu la yaabaa. maalinka xiga Hyunsuk waxaa u imaata Seoul waxayna u sheegtaa bandhig show inuu ka qayb galo. Hyunsuk xoogaa kuma qanacsan balse waxay u sheegtaa Seoul in arrinkan asigii kooxda ay muhiim u tahay sida darteed uu ogolaado. maalinka xiga waa arkaynaa Hyunsuk oo ubax soo qaada wuxuu rabay iyada inuu siiyo balse waxay u sheegtaa in naxariista uu muujinayso uu fahmay si qalad ah. Hyunsukna qalbada ayaa bash dhahdo. kadib Seoul way soo orday iyadoo wax ka dafaysa maadaama dad ay aragtay. dadkaasna xalfad waxay u dhigaan mid ka mid ah shaqaalaha taasoo uur yeelatay. Hyunsukna Seoul tiim kale ayaa farxadda la qaataan. markaas waxaa la gaaraa habeenkii waxaan arkaynaa Seoul oo la joogta Hyunsuk. waxayna u sharxaysaa waxyaalaha uu sameyn doono markuu muuqaalka duubayo. maalinka xigana waxaan arkaynaa iyagoo soo raacay waxayna imaanaan goobta wax lagu duubayay. Hyunsuk wuxuu la jiray jirin gabar lagu magacaabo Hana. duubista qaybtana waxaa la rabay Hyunsuk si romantic leh inuu cunto u siiyo gabadha balse wuxuu bilaabaa cuntada kaligiis inuu cunaba. oo Hyunsuk cuntada macaankeeda ay ugu baxday. dadkii wax duubaya arrinkaas markay arkaan way la yaabaan. Seoul ayaa Hyunsuk caawisa waxayna siisaa tilmaamo. markaas ayuu soo xasuustaa gabadha inuu isku dayo cunto inuu siiyo laakiin way ka diidaa. Hanana xoogaa way is adkeynaysa laakiin Hyunsuk ayaa ku dhahaa cun. kadibna wuxuu bilaabaa cuntada afka inuu geliyo inkastoo afkeeda uu yaraa. laakiinse markay cunto cuntada ayay ku saxataa. dadkii markay arrintaas arkaan waxay bilaabaan inay soo kala ordaan. Hyunsuk wuxuu bilaabaa gabadha inuu caawiyo. waxyar kadibna waxaa arkaynaa Seoul oo raaligelinaysa managerka wax duubayay. waxayna dusha saartaa wax walba Hyunsuk uu sameeyey. managerka ayaa ku dhaha maanta waxaa usoo dhigatay inay qof dishaan balse mar kale qaladkaasi aan arkin. dhan kale Hyunsuk murugo ayaa haysa wuxuu sameeyey kadib balse Seoul ayaa u imaaday iyadoo dalad u wada waxayna ku dhahdaa qof walba jireenka markuu cusub iyo qaladaad way ka dhacaan ee orod bax oo gabadha u tago soo raaligeliyay. Hyunsukna hadalka Seoul ayuu soo qaataa wuxuuna u imaadaa Hana asagoo weliba daladii wataa. wuxuuna bilaabay wuxuu ku sameeyey inuu ka raaligeliyo asagoo cafis weydiisanaya balse way dhaqaaqada waxayna ku dhahdaa war ii tagniyo in ay dishaa ugu talagashay
adige markaasna kuwii wax duuwaya arkay iyagoo socda waxayna bilaabeen kaamiradooda inay soo qaataan Hayunsuna jilinka ayuu ku xiyay mooyaane reality okay ayuu ku yahay waxayna bilaabeen si ahaana inay isfahmaan markaas mid kamid ah shaqaalayaasha hurdo kasoo kacaya meesha imaado wuxuuna ku istaagaa fiiladii wax lagu duubayay taasina waxay sababtaa Sion inuu ku daba dhaco markaasna awoodii Sion taasoo mustaqbalka lagu arkay ayaa shaqeyso waxayna ku dhex ragtaa laba qof oo romantic jira arrinkaas ayayna fahmi weynaysaa maalinka xiga qof walba ayaa isku imaado waxaana la fiirinayay fiidiyowga ee duubeen Hayunsan iyo Han run ahaantii muuqaaladooda waxay u dhaceen si cajiib leh isdhexgalkooda xataa looma malaynay inuu jilin yahay kooxdana markaas waxay baartaa waxyaalaha trendiga ah waxaa la yaabka ayaa ah qofka trendiga wuxuu noqdaa Sion arrinkaas ayay la yaabtaa dhanka kale Hayunsanku wuxuu imaadaa supermarket isagoo rabo meesha alaab inuu ka qaato balse geesihiisa markuu fiiriyo wuxuu arkaa asagoo sawirro laga qadqaadayo wuxuuna dareemaa caanimada waxay tahay markaas waxaan aragnaa Hayunsan taasoo joogto goobtii wax lagu duubayay laba gabdhood oo imaada waxayna weydiiyeen maanajerda Sion iyada inay tahay Sion waxay ku dhahdaa waa aniga gabdhahana moobeel ayuu dhiibay waxayna ku dhahaa Han iyo Hayunsan nagu sawir Sion isdiyaari ay ku dhahdaa sawirka ayana ka qaadaa markay sawirka qaadana inta meesha ka tagi lahayd way sii taagnaatay iyadoo rabto sheekada inay sii dhegeysato horna waxaa ka aragtay mid ay saaxiibo yihiin isla markii dhankeeda ay usoo ordaa waxayna ku dhahdaa maanajerka ayaa ku yeerayo Han iyo Hayunsan oo isoo waxayna imaadaan dhankaasii barkada waxaana ogaanaa labadu in lagu amray inay isla sheekaystaan si ay isku fahmaan si uu jiliinkooda u fiicnaado markaasna waxaa lasoo gaaray qaybtii labaad ee duubista qaybtana jiliin aad u badan laga marin oo keliya hadal ayaa laga rabay sidaas darteed Hayunsan wuxuu wacaa Sion markay imaadaan waxay soo dhex gashaa dhexdooda Sion waxay bilowdaa markaas inay ammaanto Hayunsan xataa iyada ayuu ku maqnaa waxaana xataa kama soo jeesto markaasna duubistii labaad ayaa dhamaatay waxaana lasoo gaaraa duubista saddexaad mar labaadna Hayunsan wuxuu bilaabaa inuu u yeero Sion iyadoo yaban ayuu imaadaa waxayna bilaabaa inay dhaasi gaarayaan labadooda dadka meesha jooga waxay bilaabaa inay qoslaan markaasna Sion way soo baxdaa waxayna soo dhex gashaa gaarigeeda maadaama maanta dhan shaqo aad u badan ay qabanaysa way daashay waxayna bilaabdaa meesha inay dhex seexato meeshana waxaa soo mara Hayunsan wuxuu arkaa iyadoo gaariga dhex rud qoorteeda dheerta markaas ayuu qabtaa intuu qoorta u toosinayana wejigeeda ayuu si fiican u daawanaya asagoo iska dhowl cadeynaya laakiin intay taasi dhehaysa Yenwu ayaa si qarsoodi u arkay dhacdadaas oo dhan kadib sikadiisa ayaan dib ugu laabanaynaa waqtigii hore waagii ay Sunyu ay dhiganaysay dugsiga sare waxay maalmaha kamid ah ku dhex seexatay baska iyadoo wadata buuggeeda xasuus qorka waqtigaas qof fadhiyay gadaasheeda wuxuu ahaa Yenwu intii baska lagu jiro oo dhan wuxuu si degan u daawanayay iyadoo hurda markii uu madaxeeda ku dhawaaday inuu ku dhaco daaqada baska wuxuu si tartiib ah meesha u dhigay gacantiisa si uu uga ilaaliyo dhaawac kasoo gaaraya madaxa wuxuu ku hayay madaxeeda hoostiisa muddo dhan si ay ugu seexato si raaxo leh markii ay Sunyu baska ka degtay Yenwu wuxuu si dhow maalisa buug xasuus qorkeeda ugu celiyay boortadeeda wuxuuna sii daawanaya iyadoo tagaysa soo dhowl cadeynaya markaan dib ugu soo laabano waqtiga hadda la joogo Siyun waxay Yenwu u kaxaysay imtixaanka jilaannimo ee doorka filimada sababtoo ah waxay u aragtay mustaqbalka waxayna ogaatay in fursadda ninkan gebi ahaanba wax ka bedeli karto maadaama ay Siyun aragtay mustaqbalka filimka uu guul weyn gaari doono sababta kaliya Yenwu ugu dhawaatana waxay dhana ku qasabtay inuu filimkaas ka mid noqdo laakiin Yenwu ayaa xoogaa hobareer wuxuuna weydiiyaa miyaan loo baahnay inaa hadda joogo goobta duubista ee Hayunsu Siyun waxay u sheegtay in hadda ay tahay si buuxda inay diiradda u saaraan imtixaankan kaliya intii lagu guda jiray imtixaanka garsoorayaasha waxay weydiiyeen Yenwu hal su'aal taasoo ahayd maxaa xiiseysaa wuxuu si daacada u jawaabay inuu jecel yahay garaacista biyaanada markii uu taas sheegay kadib wuxuu xataa garaacay biyaano taasoo isla markii cajiisay qof walba oo qolka joogay isla mar ahaantaana waxaa arkaynaa Siyun oo wictaan ka heshay Hayunsan wuxuuna weydiiyey waxa ay hadda qabanayso Siyun waxay caadi ugu jawaabtay inay hadda kaliya eegayso sawirada isaga Han ay wada galeen dhan kale Han ayaa usoo jeestay dhanka Hayunsan waxayna weydiisay inuu necab yahay la qaadashada waqtiga iyada maadaama uu mar walba ku mashquulsan yahay taleefankiisa kadib waxay si qeyraro u sheegtay inay rabto in heestooda ay noqoto mid ugu bandhiga fiican markii ay bilowday inay fadhiisato Hayunsan wuxuu si degan ugu jawaabay inuu isaguna waxaas rabo kadib Han waxay weydiisay inay kulmi karaan duubista kadib asana wuu ka ogolaaday dhan kale Yenwu wuxuu si farxad leh ugu sheegay Sunyu inuu imtixaankiisa ku guuleystay uuna dareemaya in hore loo doortay wuxuuna xataa si dhab ah ugu mahadceliyay Siyun maadaama iyada meesha keentay kadib markay banaanka soo baxeen Siyun waxay aragtaa sawirkaasi ku wada jira Han iyo Hayunsan markay si fiican u fiirisay waxay aragtaa dharka ay qabaan inay ahayd xasuusteeda ay arkaysa mustaqbalka isla daqiiqadii ay taas ogaatay Siyun way naxday waxayna si degdeg ah usoo kaxaysay gaariga iyadoo soo kaxaynaysa Yenwu kadib waxaa arkaynaa Hayunsan iyo Han oo wada tababaranaya heestooda markii uu Hayunsan bilaabay inuu baxo kadib Han ayaa sikadiisa u joojisay waxayna si tartiib ugu soo dhawaatay wejigiisa iyadoo ku dhow inay dhunkato laakiin isla daqiiqadaas saxda ah Siyun ayaa sikadiisa meesha u timid waxayna soo dhex gashay wax kasta iyadoo aad u shoogsan waxayna isla markaas ka joojisay ficilkii si kastaba ahaatee ilbras kadib waxaa ogaaneynaa in waxaanay dhan ay qayb ka ahaayeen film duubista markii ay ogaatay xaaladda si qaldan inay u fahantay Siyun aad ayay xushato waxayna bilowday dadka dhan inay raali geliso kadib Yenwu wuxuu Sunyu weydiiyey inay u raacdo casho intii ay wada hadlayeen wuxuu sikadiisa u weydiiyey wax aan laga filaynin wuxuuna ku dhahay ma dhab baa inaad mustaqbalka arki karto kadib waxaa arkaynaa labadooda oo wada fadhiyaan gaariga dhexdiisa iyadoo Yenwu uu weydiinayo su'aalo kasta wuxuuna weydiiyey inay tahay geesi qarsoon iyo inay joojin karto musiibooyinka waaweyn markan Yenwu waxay qaratay ugu dambeyntii xaqiiqada waxayna tiri haa runtii mustaqbalka waa arki karaa kadib waxaan soo galaynaa muuqaal hore oo muujinaya in xataa iyada Sun ay hore u ogeyd awoodda la yaabka leh tani kadib waxaa arkaynaa miskaanka oo si dhab ah ula hadlaysa Siyun
Sion, waxaana u sheegtay markaa kadib daawatay muuqaalkii habeenkii inay u muuqato Sion inay joojiso Hyunsu iyo Han sababo dareenkeeda gaarka ah, halkii ay taasi noqon lahayd sababo shaqo. Laakiin Sion isla markaaba way difirtay, waxayna si adag u sheegtay inaynan jirin wax arrimo shaqsi ah oo meesha ku jira. Ugu dambeyntii miskaanka waxay go'aansatay in iska rumaysato. Dhanka kale, Yoonwoo wuxuu Hyunsu siinayay talo, wuxuuna u sheegay in qofku u baahan yahay inuu ogaado meesha wax xariiqad u jiidaya nolosha, ha noqoto qoobka ciyaar ama xiriir. Taas kadib Hyunsu wuxuu si toos ah ula hadlay Sion, wuxuuna u sharaxay inuu isaga iyo Han aanay dhab ahaantii is dhunkan. Habeenkii horena waxay kaliya u istaageen si isku dhow, sababtaasna waxaa keentay duubista. Laakiin Sion waxay si qabow ugu jawaabtay inaynay arrintaas dan ka lahayn. Kadib waxay si toos ah u weydiisay inuu jecel yahay Han iyo in kale. Hyunsu wuxuu si kaftan ugu jawaabay inaanan u sheegi doonin, sababtoo ah haddii u sheego waxay ka joojin doontaa danaynta badan. Kadib si fudud ayuu u fariistay isagoo ka tagay iyadoo aan hadal u reebin. Kadib waxaa arkaynaa Sion iyo Yoonwoo oo waqti wada qaadanaya, iyagoo garaacaya biyaanada. Labadoodana waxay u muuqataa kuwo faraxsan oo ku raaxaysanaya biyaanada. Kadib Yoonwoo wuxuu guriga ku daawanayay muuqaalkii biyaanada ay wada duubeen, laakiin isagoo daawanaya Hyunsu oo meesha maraya arkay. Isagoo xiiseynaya Hyunsu wuxuu weydiiyey heesta, sababtoo ah heestan oo kale weligiis ma maqlin. Yoonwoo wuxuu si cad ugu sharaxay heestan inay soo saareen asaga iyo Sion. Weliba maantadan maqalka tani waxay ka dhigtay in wejigiisu isbedelo. isla markaas wuxuu bilaabay heesta asagoo dhegeysanaya inuu dhaleeceeyo. Maalinta xigtay Sion waxay ka walwalsan tahay sida Yoonwoo u qaadan doono maalintiisa fasaxa, maadaama aanu lahayn wax jadwal shaqo ah. sidaas darteed Yoonwoo wuxuu ku martaqaaday inay u raacdo bandhig muusig, laakiin isla daqiiqadaas waxaa soo muuqday Hyunsu wuxuuna ku dhahay ma nii raaci karaa meesha u socotaan. Si kastaba haatee Yoonwoo wuxuu si degdeg ah u bilaabay inuu marmarsiyoodo, asagoo dhahay shaqo ayaa ii taala. Halkaasna waxaa ku fahmay Yoonwoo inuu si dad badan u diidayo inuu kusoo biiro Hyunsu. Maalinta xigtay waxaa arkaynaa Teo iyo Hyunsu oo guriga joogo, waxayna arkeen Yoonwoo oo isdiyaarinaya weliba soo gashanaa jaakadiisa ugu jeclaa. Waxayna weydiiyeen maanta inuu u socdo balan ama date. Yoonwoona wuxuu u sheegay haa gabar inuu la kulmi rabo. Kadib waxay weydiiyeen gabar qofkay tahay, balse intaanu u sheegin waa la soo bacaa, waxaana soo bacday Sion. Tion wuxuu ku dhahaa Sion ma balan date la aadaysaa. Yoonwoona wuxuu ku jawaabaa haa. Isla markii waxaa arkaynaa Hyunsu wejigiisa inuu isbedelayo isagoo weliba masiirsan. Kadib markii uu Yoonwoo la kulmay Sion, wuxuu siiyey hadiyad yar, wuxuuna si xishood leh ugu sharaxay inay jirto dalab yar, taasoo ah iibso hel mid free ah. Wuxuu u keenay midkii dheeriga ahaa iyada, laakiin intii ay labadooda waqti wada qaadanayeen, Hyunsu wuxuu si weyn u wacayay Sion nambarkeeda. Markastay taleefka qabtana wuxuu weydiinaya su'aalo bilaa macni ah. Dhab ahaantii sababta ka dambeysa waxay ahayd mid cad. Hyunsu aad ayuu u masiiray kadib markuu arkay Yoonwoo iyo Sion isla socdaan, markaasna wuxuu ku dhibayay wicitaan joogto ah. Isla mar ahaantaana waxaa arkaynaa Irib oo joogo meel kaloo jidka lagu nasto. Markuu gudaha kasoo baxo wuxuu ogaadaa dharkiisa inay maqan yihiin, wuxuuna wacay Sion, laakiin waxay u sheegtay inuu ku qaadan doono inay imaado 2 saacadood. Kadib sikadiisa mid ka mid ah saaxiibadiisa dugsiga ayaa meesha yimid. Labadoodana waxay bilaabay inay wada baashaalaan. Nasiib daro qof ayaa si dhumaalis ah muuqaal ugu duubay intii ay taasi socotay. Dhan kale, iyadoo Sion ay joogto meel musqul ah, waxay sikadiisa u dhegeysataa dad u dhow kuwaasoo xaminaya iyada. Kadib markay maqashay sheekadooda, si degdeg ay dibadda ugu soo baxday. Waxay u imaadaan Yoonwoo waxayna ku dhahdaa shaqa ay soo baxay, sida darteed waa inay si degdeg u baxaa. Waadna ku mahadsantahay intaa waqtigaaga i siisay. Dhan kale, Hyunsu wuxuu sii waday inuu ka walwalo waxa ay Sion sameynayso. Kadib sikadiisa Yoonwoo ayaa isna meesha yimid. Hyunsuna isla markaas wuxuu weydiiyey sababta u soo laabtay goor hore, maadaama xataa ay saacadu gaarin 10 PM. Yoonwoo wuxuu si dacad u sheegay Sion inay hesho shaqo wicitaan, taasoo ku qasabtay inay baxdo. isla daqiiqadii uu maqlay Hyunsu taasi, wuxuu si dhab ah ugu farxay gudaha. Maalintii xigtay waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay in muusiga Hyunsu loo doortay heesta rasmiga ee kooxda Seoul. Kadib iyadoo Hyunsu iyo Han ay wada duubayaan heestoodii, Sion waxay soo gashay istuudiyaha. isla daqiiqadii uu arkay iyada, Hyunsu wuxuu bilaabay inuu xasuusto wax walba soo dhex maray. Markaas kadib waxaa arkaynaa Yoonwoo oo la jooga gabar la jisha filimada, waxayna weydiisaa weligiis gabar inuu u wada date. Yoonwoo hadalkaas markuu maqlay wuxuu soo xasuustay mar uu taleefka Sion uu ku dhex arkay feelka codka gitaarka ee Hyunsu u soo diray. Kadib xasuus kale ayaa maskaxdiisa kusoo dhacday, halkaas oo Sion usoo dhawaatay asaga, asna si degan uu ugu dhiibay albamkiisa ka hor intuunan aamusnaan ku kala tagin. Markaan dib ugu soo laaban waqtiga hadda la joogo, Yoonwoo wuxuu si murug leh ugu sheegay gabadha in fursadiisa ay dhammaatay ka hor intaanu si habboon u qirin dareenkiisa. Gabadha ayaa ku dhiirigelisay in isku ilaawo arrinkaas, laakiin Yoonwoo kaliya u dhoola cadeeyey, asagoo ka xun ayuuna yiri waxaa laga yaabaa inay tan qadarkayga ahayd. kadib waxaan arkaynaa waraysiyo ku socda dhammaan shaqaalaha iyo fanaaniinta shirkadda Starlight. markii ay Sion dhamaysay waraysigeeda, Hyunsu ayaa si kiis ah ugu soo dhawaaday, wuxuuna bilaabay inuu weydiiyo waqtiga ay fanaaniinta si rasmi ah u bilaabi doonaan shaqadooda. shirkadda dhexdeeda Sion waxay u sharaxday in wax kasta ay ku xiran yihiin miskaag iyo markay si rasmi ah u xansaxiso. waxaa xiiso leh in albamka cusub ee kooxda Seoul uu soo dhow yahay, mar dhow ayaana la soo saari doonaa. kadib Hyunsu wuxuu Sion tusay saacadda, wuxuuna yidhi hadda waa 11 PM, wuxuuna u sheegay in markay saacadu gaarto saqda dhexe shaqadiisa rasmiga ay bilaaban doonto. kadib sikadiisa wuxuu weydiiyey Hyunsu su'aal aan filayn
Sion haddii aan qof jeclaado ma u sheegaa. Sion isla markaaba way naxday, waxayna weydiisay inay tani tahay kaftan ama kaamirad qarsoon uu ku duubayo. Laakiin halkuu ku jawaabi lahaa Yunsun wuxuu si kedis ah u dhunkaday iyada. Kadib si degan wuxuu u sheegay dareenkiisa hadduu soo bandhigi lahaa inuu ka shaqayn lahaa intaasoo sano. Isla markay saacad u dhaaftay saqda dhexe, qof walba wuxuu bilaabay inuu wada dhegeysto heesta cusub ee kooxda Sion. Dhammaantood waxay noqdeen kuwo aad u faraxsan oo qiiro leh. Markaas muuqaalkeena wuxuu u wareegaa 2 toddobaad kadib. Heesta kooxda Sion waxay heshay views aan innaba caadi ahayn, halka dhammaan xubnihii ay noqdeen kuwo ku mashquulsan bandhigyo iyo xayeysiisyo. Sidoo kale Yunwoo wuxuu ku mashquulsanaa filmaanta duubistiisa. Kadib Sion waxay timid goobta duubista si ay u soo qaado Hyunsu, Teo iyo Erib. Markii ay aragtay iyadoo si adag u shaqaynaya, waxay go'aansatay xoogaha inay farxad geliso. Sidaas darteeda waxay ogolaansho ka raadsatay agaasimaha, wuuna ka ogolaaday. Markaasna waxay si dhumaalaysi ugu shiday heestooda iyadoo ka shidaysa samiicadaha goobta yaalay. Markii ay xubnaha maqleen heestooda, niyaddooda ayaa isla markiiba hagaagtay, waxayna si xamaasad leh usii wadeen duubista iyagoo leh tamar badan. Kadib iyadoo Sion ay joogto isbitaalka, waxay daawatay barnaamij TV kaasoo ka hadlaya aragtida mustaqbalka iyo bedelida qadarka. barnaamijkaas waxay ka ogaatay wax aad u naxdin badan. markasta qof uu wax ka bedelo mustaqbalka waa inuu rumeeyaa wax aad u qaali ah agtiisa. maqalka tani waxay ka dhigtay mid aad u walwalsan, laakiin waxay go'aansatay wax kasta oo dhaca inay garab taagnaan doonto kooxda Sion si ay u guulaystaan. markaas muuqaalkeena wuxuu u wareegaa 2 toddobaad kadib, halkaas oo kooxda Sion aan ogaanayn heestooda inay hesho views aad iyo aad u badan. maqalka tani Sion waxay ka dhigtay mid aad u faraxsan, laakiin isla markaa waxay soo xasuustay barnaamijkii TV-ga ee qadarka. aad ayay u cabsatay maadaama wax walba sidooda hadda u socdaan qof ay weyn doonto. waxaasna waxay yihiin ilaa hadda ma oga. iyadoo ka fikiraysa arrinkaas, qofka u horey maskaxda kusoo dhaca wuxuu noqday Hyunsu. kadib intii arrinkaas ka fikiraysa, meesha waxaa imaaday Erib. albaabka gaaray marka furtana wuxuu dhiibay taleefankiisa soo tusay fiidiyowga lagu dubo asiga gabadha. dhanka kale kooxda Sion waxay noqdeen kuwo caan ah maadaama ay sahooda uu qarxay, xubno walbana goonidiisa ayuu caan u noqday. Sion waxay markaas la kulantay ninkii hadli jiray aragtida mustaqbalka, waxayna weydiisay sidii awooddeeda ugu takhalusi karto maadaama laga yaabo qof muhiim inay ku weyso. ninka wuxuu u sheegay ku mashquulka mustaqbalka inuu ku luminayo waqtiga ay hadda ku nooshahay. sidaas darteed Yunwoo arrinkaas way ku wareertaa, ninkana waa iskaga soo tagtaa iyadoo shirkadda soo aadaysa. markaasna waxay la kulantaa maamulada Miskaan iyadoo tusaysa fiidiyowgii laga duubay Erib. maamuladan waxay go'aansataa iskoolka inay iyada aado. Miskaanna waxay imaadaa maalinta xigtay dugsiga, ardayda ayayna khudbad dheer u shidaa iyadoo ka waanaysa muuqaalada falxun ee dadka ay ka duubayaan. Miskaan markay banaanka soo baxda, gabadhi ayaa kasoo dabarooda, waxayna ku dhahdaa ardayda markaa baxda waxay bilaabeen muuqaalada inay tirtiraan. Miskaanna waxay u jawaabtaa adii Erib ayay nii taalaataas. kadib gabadha waxay ku dhahdaa waa maqlay in badan, waxaa tahay maanajarada ugu fiican Soomaaliya shirkadda. Erib ayaa in badan ii ka ammaanay. maamuladan si kaftan ayay ku dhahdaa waxay u qaldisaa Sion, aniga waxa ay shirkadda Sion ogeysa. markaas Erib ayaa soo boday wuxuuna bilaabay maamulada inuu ammaano. maamuladan waxay bilaabdaa gabadha inay siiso kaarkeeda. Sion markay ogaato maamulada inay xariso arrinta Erib way ku faraxdaa. maalinka xiga shirkadda waxaa ka jirta xaflad taasoo ay sanad guurada 10aad ee Starlink ama shirkadda. Sion waxay ka warsanay Hyunsu inuu Mongolia ku laaban doono. markay la kulantana gees ayay ula soo baxdaa, waxayna weydiisaa sababta ugu laabanaya Mongolia, balse wuxuu u sheegay inay ahayd keliya magac bandhig TV cusub. kadib masraxa soo kora Miskaanka, waxayna sheegtaa inay ka degaysa xilka CEO-ga. asxaabta meesha joogana waxay bilaabaan sawir inay galaan marka laga reebo Yunwoo, sababtoo waa ku mashquulsanaa filmadiisa. isla markaana Sion waxay aragtay mustaqbalka in xataa ay iloobi doonto kooxda Sion. markaas iyadii Miskaan way soo raacaan, waxayna imaadaan dhankaas shirkadda. intay Miskaan la joogtana awooddeeda ay shaqayso, waxayna aragtaa mustaqbalka inay iyada noqon doonto CEO-ga shirkadda. weliba kooxda Sion ay intaas kusoo dadaalaysa ay iloobi doonto. markaas dib waxaana lagu celiyaa 2007 halkaas oo la ogaaday in Sion iyo Hyunsu ay is yaqaaneen iyagoo carruur. seasonkeena Top Management halkaas ayuu nagu dhamaaday saaxiibayaal. insha Allah waxaa bilaaban doonaa season cusub, balse intaad soo gaarto muuqaalka inoo qurxiyo like inoo soo rada nagu subtaa nagu soo biir. sidaas iyo nabadgelyo.